السلام عليكم soo dhawaada saaxiibadeena YouTube haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka noo saar subscribe taxaniheenan waxaan ku soo qaadanaynaa buugga la magac baxay naftayday gacalo runtii waa buug si toos ah u abaaraya ulana hadlaya naftaada talaabada ugu horeysa ee xaqiijinta riyooyinkaaga waa inaad hurdada ka toostaa naftayday gacalo maanta waa maalin cusub waa maalin aanad horay u arkin dibna aadan u arki doonin sidaas darteed jooji inaad naftaada ku maaweeliso beenihii aad markasta u sheegi jirtay imise maalmood oo hore ayaa dhayal kugu dhaafay ka faa'iideyso maalintaada ashqaraar kale maalmahaaga kalena quruxda badan gudaheeda inay haysato fursad tiro badan oo aad noloshaada ku jihayn kartid dhan kasta oo aad rabto waan ku jeclahay mar walba naftayday tagtadayda qaaliga ahay waad ku mahadsan tahay casharadii aad i siisay oo dhan mustaqbal yahow cajiibka ahi si weyn ayaan adigana diyaar kuugu ahay naftayday gacalo waxa aynu isugu xidhiidhsannahay si cajiib ah oo aanan cidna fahmi karin isla markaana fahmi doonaan hal dhinac ayaynu nolosha uga soo wada jeensanaynaa ama inaynu sidaas ahaano laakiin mar dhexe ayaan kala tagnay adiga oo iska dhexda keliga ayaan kaa tegay adiga oo isku dhexdaadsan waxa aan kugu kallifay inaan dad shisheeye ka sugo oo ka raadsado jacayl iyo dhiirigelin iyo awood iyadoo ay ahayd inaan adiga garabkaaga istaago oo aan ku soo dhowaado kuna aamino isla markaana aan kugu qadariyo shakhsiyadaada iyo xiriirkaaga quruxda badan iyo milgaha nolosha aad ku biirinayso waan ka xumahay inaad igu hungowday waan ka xumahay inaan ku xanuujiyey oo ku dayacay waan ka xumahay inaanan ku xusuusan had iyo habeen sida aad u tahay qof qaali ah aad u tahay qof wax kasta oo wanaagsan u qalma una tahay geesi naxariis badan misna awood leh ahna mid adkaysi badan iska kaycafi naftayday sida aynu nahay ayaynu qiimo ku leenahay mustaqbalka soo socda waynu wada sida aynu nahay ayaynu qiimo ku leenahay mustaqbalka soo socda waxa aynu wajihi doonaa hadda waan ishelnay marnaba gacantayda ma sii dayn doono marka waxa aan siin doonaa mudnaanta koowaad iyo kaalinta ugu sarreysa kaalmaha noloshayda waan ku ixtiraami doonaa waan ku karaamayn doonaa waan ku qiimayn doonaa weliba anigoo ku jeclaan doona daacad baan kuu jecelahay mar kasta naftayday gacalo noqo qof dabacsan